bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada warbixin kale oo aan kaga hadlayno ciidamada midowga Afrika AMISOM. qaybta militariga waa qaybta ugu weyn saddexda qaybood ee dalkan gudihiisa ay ka howlgasho AMISOM. qaybtu waxaa awood loo siiyay inay qaado howlgal ay ku taageerayso nabadda Soomaaliya kuna ilaalinayso xaaladda dalka inay abuurto xaaladaha looga baahan yahay gaarsiinta howlaha gargaarka bini'aadanimo iyo ugu dambeyn AMISOM inay u gacan geliso howlgallada nabadgelyada qaramada midoobay. waxaa madax u ah taliyaha ciidamada AMISOM. qaybtu waa qayb ay u xil saaran tahay ilaalinta hay'adaha federaalka ee dalka marka ay gudanayaan shaqooyinkooda. waxaa kale oo ay gacanta ku haysaa nabadgelyada ilaha kaabayaasha dhismaha oo ay ku jiraan garoonka diyaaradaha iyo dekedda weyn ee Muqdisho. sida uu dhigayo go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay 24 AMISOM ciidanka ka jooga Soomaaliya waxa uu noqonayaa 21586 askari oo lagu daray 540 saraakiil ah oo xilligan la joogo qaybta militariga. waxay ka kooban tahay ciidamo laga kala keenay Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia oo ay ku kala baahsan yihiin 6 aag oo daboolaya bartamaha koonfurta Soomaaliya. ciidamada Uganda waxa ay ka howlgalaan aagga koowaad oo ka kooban gobolka Banaadir, gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada Kenya waxay mas'uul ka yihiin aagga labaad oo ka kooban Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, aagga saddexaad oo ka kooban Bay iyo Bokool iyo sidoo kale gobolka Gado. qayb saddexaadka waxay hoos imaanayaan ciidanka ka amar qaata Ethiopia. ciidamada Djibouti waxay mas'uul ka yihiin aagga afraad kaasi oo daboolaya gobolada Hiiraan, Galgaduud, iyadoo ciidamada Burundina ay mas'uul ka yihiin aagga shanaad kaasi oo daboolaya gobolka Shabeellaha Dhexe. marka lagu daro ciidamada Sirlayon oo iyaguna mas'uul ka ah aagga Kismaayo oo daboolayo oo la hoos geynayo dekedda weyn iyo agaaraha magaalada. iyagoo markii ugu horeysay la keenay ciidamada militariga AMISOM sanadii 2007 waxa ay ahaayeen aalad gacan ku siisay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya in ay dibadda u ceeriyaan koonfurta Soomaaliya oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinkaba. kooxaha al-shabaab oo gacan saar la leh al-qaacida waxay abuurtay qaybtanu ilaa xad nabadgelyo la isku halayn karo oo suura geliyay inuu howlgalka nabadgelyada Soomaaliya dibadda aasto, ogolaatayna inay dadku maxalligu helaan fursad ay ku bilaaban karaan hay'ado xukun maxalli ah oo la xisaabtami karo, kuwaasi oo awoodo inay bilaabaan gaarsiinta adeegyo iyo inay dib u dhisaan dhaqaalaha iyo saameynta xiriiro ay la yeeshaan dhaqaalaha waddanka iyo midka dawladaba. Muqdisho maanta waa isbedeshay, dhaqaalihii dalkuna kor buu u socdaa, saameyntuna waa ay ka fog tahay in lagu koobo oo kaliya Muqdisho. nabadeynta caasimaddu waxa ay suura gelisay AMISOM inay ku dhaqaaqdo wejigii labaad ee mabdii asalka ahaa ee howlgalkeeda, waana inay ka howlgasho dalka oo dhan iyada oo ballaarinayso awoodda dawladnimo. qaybtu waxa ay shacbiyad ku dhex yeelatay dadka deegaanka, waxaana keenay dabeecadaha hawsheeda oo ku dhisan adeegyo xor ah oo kala duwan oo ku jiro adeeg caafimaad oo ruuxa xanuunsan isbitaal gudihiisa la jiifinayo, mid dadka dibadda ka imaanaya loo fidinayo, iyo sidoo kale in ay bixiso adeegyo daruuri u ah bulshada sida in ay qaybiso biyo nadiif ah oo dadka deegaanka la qabsaday u baahan yihiin. qaybtii labaad ee warbixinadii aan kaga hadlaynay ciidamada AMISOM maxaa ay u joogaan Soomaaliya inta ayaan ku hakinayaa. fadlan ha hilmaamin subscribe, like and comment.